allah anigu waan ku aaminay waxaana kuu jeclaay si qof bilaadan ah aanan weligay u aaminin waxaana kugu aaminay qalbigeyga iyo sharafteyda iyo nolosheeda adiga ayaana kuu jajabnaay hadalkaada oo kaliya ayaana ii muuqday xitaa wuxuu qalbigeyga ii sawirayay mararka qaar qof walba oo aan la hadasho xitaa inaan la dagaalo laakiin dareen ahaan ayaan isku celinayay sidaas oo ay tahayna maanta waxaan dareemay wadadii mugdiga ahayd jacaylkeenu waxaan jeclaay si qiimo badan inuu ku dhamaado jacaylkeenu waxaan jeclaa inuu ku dhamaado si sharaf badan anigu maanta waxaan ahay maqano jooge nafti aan jeclaay way iga tagtay isma aanan lahayn mar qur ah ay dunidan quruxda badan kugu cidlay doontaa waa qiso xanuun badan oo nala soo wadaaga mid ku xiran saaxiibadeeda barta YouTube-ka magaciisa Cali ayuu noogu soo koobay dheemanta dunidan oo ka doortana magaceeda waxa uu noogu soo koobay Maria sanadii 2016 ayay ahayd aniga oo dhiganayo iskuul ayuu Cali sheekadu noogu bilaabay waxaan xiriir jacayl oo qurux badan u qaaday Maria markaas waxay ahayd gabar dugsiga dhexe dhiganaysay anna fasalka foowan ayaa ahay ayuu Cali dhahay waxaan isku dayay inaan mar walbo wax walba oo qalbigeeda ku faraxsan yahay u sameeyo Maria waxay ahayd gabar aad u da'yar markaas ayayna madaxa soo qaadaysay oo xaaladda 15 sano ay soo galeysay waxaana qalbigeeda inaan ku qunfulo jeclaay jacaylka quruxda badan oo aan maanta aniga ku kaliyoobay kaasi oo aan islahay weligeed Maria kaama tagi doonto oo nolosha adiga ayay ku jeclaa doontaa waxay igu qaadatay muddo 1 sano iyo bar ah in Maria qalbigeeda jacaylkan ka dhaadhiciyo hadallada igu badnaa ayuu Cali dhahay markii Maria aan la sheekaysto waryaa iga xishow aniga gabar yaraan ahay waxaas ma gaarin shukaansi maxaa la dhahaa iyo waxyaabo kale sidaas oo ay tahay waxaan diyaar u ahay maalin qura ah inaan Maria ku guuleyso doono ayuu Cali dhahay dadaal dheer kadib 1 sano iyo bar kadib markii ay wada socdeen waxay Maria mar qura go'aansatay markay aragtay saaxiibkeed Cali naxariista iyo muxabbada ka muuqato iyo sida quruxda badan oo u jecel yahay iyo hadiyadaha xad dhaafka uu keenayo iyo dadaalka ugu sareeyo ee fasalkiisa kaalinta koowaad uu galayo in Maria markeedii dig lagu soo dhaho talooyin fara badan ee raadisay iyo saaxiibo badan oo iskuulka la dhiganaya ee soo weydiisay jacaylka waxa uu yahay Maria iyo Cali jacaylkoodii sidaas ayuu ku bilowday habeenkii ugu horeeyay waxay ku wada qaateen si qurux badan oo noloshooda bilowgooda wuxuu ahaa bilow qurux badan habeenkii ugu horeeyay ee Cali Maria ku dhahday Cali oo muddo 1 sano iyo bar kadib waxaan rabaa inaan noo rumeeyo jacaylkii muddo soo waday Cali wuu istaagay waa oo fadhiistay cunto ayuu faraha kula jiray wuuna ka bixiyay asagoo markaas dhahay abbaayo ma hubaalba ma xaqiiqba inaa jacaylkaas iga aqbalaysid markaas ayuu Cali dhahay ma been ayaad iga baratay markaas ayuu Cali dhahay maya Cali waa uu farxay markaas ayay dhahday indhaha isku qabo fariin baan kuu soo dirayaa ee aqri fariinta ayaan ku bilaabanaysay Caligan dunida ka doortow markaan arkay qiimaha aad leedahay darajadii maamuuska agteeda waxaan go'aansaday nafteeda inaan kugu aamino deeman soo baxa baatahee Cali oo nafteeda hadiyaday markaas oo dhahay iftiin ii dilaacay baa tahay mugdi baan ku jiro muxabbada galgaceelkiyo darajo halkee tahay haddii hiigsi lagu wada joogo aadaan Maria ku siiyo maanka ku weyno aqli iyo garasho adaa saaxiib u ahoo adoo dadka ila simeen daacadun iyo ahaw halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qisadii jacaylka ahayd ee wadhex martay walaalkeen Cali iyo walaasheen Maria annagu waan isjecleen
jacaylkiina wuu guulaysan rabay dantaa noo run sheegto ragnimo ma waayino ayuu cali dhahay faamilkeeni ayaa isku diiday qaab qabiil ahaaneed gabadhan jeclayne qabiil ahaan ayaa la iigu diiday qaybteedii labaad intaa ku kulmi doono waa saaxiibkiin idiin soo gudbiyey qisooyinka jacaylka mahad abuukar maxamed mahad socdaal oo idin leh tan iyo qaybta labaad intaa ku kulmi doono saaxiibka sharafta badanow ilaa iyo dhammaadka muuqaalka haddaa nala joogtay saaxiibada bahda mucaashaqiinta sheer u dheh si aan u helno saaxiib adigoo kale ah waa ku mahadsantahay daawashadaada